صاحب قرنا تمشيكي إيميل سو شيء بقولنا يا بس هاك مركز سوا عليه وان قاعدة والله ما شاء الله قرن النور وكتب هذا الإسوا تشيكي شو كان باترساك مركز سوا عليه وقاعدة هاي ما شاء الله وان كايا صاحبي سيادة يقول قلقال وتاهي صاحب قلقال مي وين هذه نور وحن كيمدي شلت ولا إمدي تشيكي أو نور كيمدي وحلا هذا كذا سنودك أسيكذا كوي إمدي إن أتكون فرحانة وين أوجا يورا صاحب محل حالة دواي حاجة محل سام حكى عصب حاجة ما شاء الله صاحب وفي عنا مركر الحمد لله إلهي مهدين محل واحد إسكاله ما دام 5 سنوات دنك أتكلم غنور ويشوكتي إلهي نبتك وكياني أيام هاد إسكاله ما في عنا صاحب ما شاء الله سعود ودن كله ودنك عيوه أما عسنت هاي صاحب وحن كلهم كويدي جمال تجيكم شوكا حق وداعي محاجرة واحدة بتاجر صاحب صاحب أرني جمال waxaa ku dhacay lama arimood murugo leh maxay yihiin labada arimood murugada leh ee jamaal ku dhacay maxaa ku dhacay waxaa jirtay gabadh uu jeclaa oo sareedo la dhaho balse markii dambe laga goorsaday naxdintu uu ka naxay arrinkaas awgeed 6 bilood ayuu waalnaa 6 bilood dhan هذا واحد لهذا مرقد أنت هلا يبغى كده على جمال صاحب أرنت مرقلة ولا كده على جمال كنت لا وعيني وبيست لكن ما يموع على هذا هو في يوياي قبل لي وشعلا أيال فرق كدبي أنا واحد كده ذا شيء إن عافماتكيسي نروشيسي دبوا بالسعلس صاحب وكح معي والله أرنتها مرقدة أنت علي جمال قبصتي ما أنا نفيلين مركات مادو تيجي النور كتمادو أي مرقدة أنت علي وقبصتي جمال أي صور نقني اسمع لحي مرنا بني جديد ما نسوق قليل هذا من سكور سديد مايا iyagoo iskuursan rabo guur ku heshiiyey ayaa gabadhii waxaa dhacday qadar Allah ayaa ku timid shil gaari ayay ku geerootay kadib saas ayay ka xumahay dhibaatada inta leeg Jamaal soo gaadhay hadda waxaan ku weydiiyey Jamaal markiisa inaa siisayaan u baahanahay si aan Jamaal ula xiriiro صاحب أيوة والله هذا إن شاء الله وحن في ليالنا وحن نسل لكن أرنا أيام دنيا سنين إنه كل شيء هذا صح أرنتها سواء وحن وباهنا هاي جمال إننا نلش لو ذاك جمال إننا كحشتو النور ويجيو وهالكلام هذا نلش يقول ذاكنو أيام دنيا waxaa kale oo baahanahay wax kasto oo isaga murugtiisa tiraya murugtii hore dhan dhibaatooyinkii hore soo maro dhan tiraya inaan u sameeyo halkaasna aan aroos weyn ku dhigano halka aan asigana halka aan geeyo haddii Ilaahay yiraahdo oona baa waxa ka baraya dhibaato dambe inuu na arkin wax kasto oo wanaagsan aan u sameyn doono haddii Ilaahay yiraahdo maxaa ka qabtaa arintaas waa wanaagsan ayaa la sheegtay runtii waa arin lagu farxo adiga Jamaal nolosha wadaagaya farxadeyda ma soo koobi karaba hanbal ayaan ku leeyahay waan kaaga mahad celinayaa inta in ka badan ba saaxiib wali isku leeyahay
hadda ayaan wacayaa la hadlayaa Jamaal. صح إن شاء الله هذا أفضل كلها أنا Halo, Jamaal waayo. Jamaal waxa weeyaan iman yarantiina isku kin dambeysay oo isku guri ku soo korteen oo 5 sano ka horna aaday Norway. Yaa macquul maaha. Allah Suleekha adiga ku iloobi karaya. Goormeed mi laakiin maxaad iga qarsay mar maxay soo wicweyd? Waan joogaa waxaan imiday shalay baan imiday. Ha 2 cisho waxa xaggan joogaa. هي waxaan u baahnaa inaan isaragno hadii la yiraahdo masaaka dhib ma lahan laakiin hadda xogaa waa yar mashquulsanahay marka waxaan jeclaan lahaa galabta inaad nooga dhigto may caadi weeyaan dhib ma lahan hadda mashquulsan tahay waa caadi waxa kama qabo haye galabta haye waayahay waan la hadlay galabtaan is arkayna biguur haddii Ilaahay yiraahdo إن شاء الله Jamaal Suleekha iyo horseetaa waa fiican seetay ma sha Allah xaalada alxamdulillah fiican ma sha Allah nuur waa kusoo qurux badnaatay ha kulay nolosha marka iska hawo bedesho bilaadanku iska soo qurux badnaadaan iyo war maxay xaaladaada iska fiican Jamaal wax kasta waxa ay sheegtay Siinib arinkaas dhibaato kasta oo kugu dhacdina Siinib ayaa iiga ka warantay marka wallahi waan ka xumahay dhibaatada inta leeg ee ku soo gaadhay waxaad arkaysaa Jamaal oo dhibaato ku dhacday ismaan lahayn bilaadanku dhibaatada way maraan qof iska qadarana kulaytana kaliya ma ahad adiga soo reeyay ku dhacday waa uu iska qadaro aniga hadda waan noolahay dhibaatooyin waa soo maray gacalsadeen jeclaana way iga tagtay way iga geeriyootay Allah naxariisto wax kale dhig karo wax haday banaan ma jiro Allah naxariisto inagana Allah inaga daba naxariisto Jamaal arin badoonina ku sheego wad ogeyd Norway markaan tagay anoo ku jecel inaan tagay haddana maanta oo Norway ka soo noqdayna isla qoftii ku jecleed ee Norway tagtay ayaa soo noqotay iyadoo ku jecel sideed ku jecel ayaa soo noqotay marka waxaan diyaar u ahay inaan Norway ku geeyo oo Norway degno oo arooskeena xagaa ka dhaco arooska ugu quruxda badan leh ugu qaayaha quruxda badan leh aan ku dhigano kharash kasta oo ha yaraado ama ha badnaado oo ku baxay arooskeenana aniga ayaa diyaar u ah waxaan doonayaa inaan ka kaxeeyo xaggan oo ku geeyo Norway si aan nolosha halka ugu wadaagno Suleekha horta waxaa tahay gabadh wanaagsan in loo guursado nolosha lagu wada wadaago wada qalantaa dabcan laakiin hadda aan culays bay saaran gacalsadeedii waqti dhow ayay geeriyootay anigana waqti dhow baan soo caafimaaday hadda waqti caadarkan runtii kumana niyad jabin karo jawaabna kuma siin karo waxay la quman beri galabkii inaan kulano insha Allah waqtigaas jawaabta ku siiyo hadday macquul tahay
jamaal waxaan kaa sugaaba waa jawaabtu ma kaa sugay haddii la yiraahdo waxaan nahay qofkii kaa biin lahaa murugadii ku soo martay oo dhan ha yaraato ha badnaato wixii murugo ku soo maro dhan qofkii kaa biin lahaa ayaa nahay haddii la yiraahdo imikana waxaan kaa sugaaba waa jawaabta haddii la yiraahdo hore saan kuugu sheegayba kolley gabadh wanaagsan baa tahay ilaa yaraanteennina isku meel baan kusoo kornay walow muddo hore ay u kaa dambeysay ama yaro hadda aad weynaatay haddana kolley ilaahay wuxuu qoran baa dhacaya jawaabtana waxaan ku siinayaa waqtiga insha allah kulano hadday macquul tahay waxaan rabaa inaad inta ku tixgeliso waa si wanaagsan dib ma lahaan laakiin waxaan ku weydiiyey xaggan maxaa igu ballamisay adoo heli karaya cafeteria la iska fadhiisto runtii halkan xasuus gaar ay leedahay xasuus aanan intaan noolahay aanay hilmaami karin noloshayda ku weyn waana goobtii waqti aan kulmayno aan ku kulmi jirnay gacalisadaydu allah u naxariista intaan iga geeriyoon ka hor halkanna mar walba waa imaadaa isbuuc walba maalin walba waayo waxaan ka dhaweystaa xasuusteeda marka kolley qadar unbay ahayd wax walbana way dhaceen maalkaa berriyana waa kulmaynaa weliba waxaa kulmaynaa cafeteriadaad iga codsatay maadaama ani goobtii aan amur rabi aan ku keenay halkaad adigu rabtay baan berri insha allah ku kulmaynaa hadii alla yidhaahdo caadi weeyaan meel kasta ood u diyaar u tahay inaan ku kulanno waan ku kulmanaa dhib ma lahan aad baad mahadsan tahay جمال أدر سمو فعني وفي عنا هذا الحمد لله شغالين سيتاي ما شاء الله الشغل في عم بوكاس عطاء قلت شغالين مسوين سندنا شقينيان حن يقول يكسب قاب هرم الصني أنا ضمن أنتي واحد رحته وأنا رنت مرة ساكب بقضي لكن هذه كوماني ماني أيقون بامبا ورئيسي عن لا يلناي وحيرة والله ما ريفي عنا نوكنتي هاد بيكو أمانة تاسوا مد كلا ما عنده حسوا كان كل هذي أنكو يريد ويكيجا أكلاتاي أنكو يريد جبر بانكو دونيا أرنكا ساو شانغلي قلبت وحنكو بلمية إن أنكو شيء وأرمهاس أساسا كو مد واحد كدي لهذا هذا سياد وإلا ودي الله نحرسه قبل هذا الجوك في عين زي كنت صوت القف يقول هذه السنة والله مستقبل كي كفكر يا حي مركا أبعين وطاي ولا سوق المستقبل لكن أبى أرجع لك وما حيرين خليج لسه أسي أرجع سوحية واحد ستة قبل ولا سلاخة ودر هذه النور وقت المدن قول هرنا الصلاحين لا يرانا سنتان هي وحين قعدت ستة إنه سجود سنة وشان كل دونه مركا أرجعس أبي أبغى كذا له دائما هو أبغى تاي أبي أبغى كجار كذا لكن أرجعس أكثر أبغى ولا سعتها ومعناها هذه قوان كله وحتى وده إن قبضي أن كودون كومي هريه إن قبضي شيء سلاخة نروي دراد هذا وتمت تعيشها ده مركب ماشي وحيسه بالنوايا وحجرنا وانا هاي ما دام قبضي سيكتي من دبد نروي دراد هذا وتمت سياد مستقبل ويالتين وحنا وجهها كده من كعر درامينا إنه لنا سلاخة هذا بدان أنا أهان أبغيدي أهان وحن كل جعل هاي سلاخة كبداسنا وينات guursatay balana waxaan ku qaaday toddobaadka soo socda waxaan tagayaa Dubai waxaan u tagay gurigii daraad dhismaha la dhameeyay maaldahaas ku soo tusaaye alaab ayaan Dubai tagay alaabtaas oo
arooska iyo fadhiga ma garatay oo ayaan Dubai kaaga soo iibinayaa de waa kaas Allah kugu barakadeeyo shaqadaada iyo gacalisadaada cusubna insha Allah wixii kharash ku baxa guurkaaga wuxuu dhanna ana xabadka u saaranaya aabar runtii waxaad garab istaagtay waqtigan garab istaagaaga u baahnaa waxaadna gashatay booskii awlaadaada صح runtii waxay iga farxad badan lama jiro maanta arrinkan ku hameeyay anoo dhibaato badan soo maray soo garab istaagtay inaad maantana igu dartay inaad mustaqbalka ka fikrayso rabtana awlaadaada awood u tahay insha Allah meesha timaado gabadhana runtii arrinkan u sheegaya iyadana waan kaga farxin doonaa waxayna ogaan doontaa garab ka weynaysa sida garab istaag aabo waxaa jira arrin kale oo isna soo kordhay haye marka gabadhu markay arrinka waqtiga timid ay sheegaysay guurka iyo mustaqbalkeena ka wada hadlaynay waxay sheegtay inay kharashka guur muxuu aroos iyo guurka iyo wax dhan ku baxay iyadoo ay qaabilayso haye waxayna iga codsatay in arooska iyagu Norway ka dhaco Norway ka dhaco xagga isku raacno marka arrinka lafteeda aabana ku ogeysiiyay taas ani ma yeelay ka baahan ma yeelay howde adoo arooskaaga miyaan ka maqnaan karaa anoo aabahaaga gabadhaas arrinkaas aabahay wuu diiday ku dheh una sheeg waddankeena deegaankeena inaan lagu aroosaayo ma garatay ka bacdi haddaa rabtiin Norway waa u raaci kartaa ma garatay una sheegna shirkad oo dhan inaan maareeyo ka ahay ma garatay laakiin muhiimadda waa guurkana xakana ka dhaw taas ka dhaadhici si diblomaasi uga dhaadhici ayadana hadalkaaga yaa diidi karee oo sheegay ayada waana ka dhaadhacsiinaya aadna ma santaabina Zainab soo dhawo waan doonayaa salaaqa bal waxaad iga warantaa arrinkii noo sheegtay Jamaal arrinta markaad sheegtay wuxuu yiri ها Zainab waan u sheegay arrinkii Jamaal balse isaga wali waxa ka dhex buuxaya arrinkii ahaa gabadhii sareedo markaan u sheegay arrinkii aan soo bandhigayna wuxuu igu jawaabay haddii Ilaahay yiraahdo waan ka soo fikiri waan jawaabna waan ku siin insha Allah ayuu dhahay laakiin wali qalbigaygu fadhiisan laayahay Jamaal jawaabtu isiin doono ayaan ilaa hadda la wareersanahay waxay noqon doonto cabsinu igu jirtaa oo bilu Jamaal uu xiriirkaaga diidana waan isleeyahay laakiin waxaan ka codsanayaa inaad adiguna dhankaaga aad kala soo hadasho Jamaal haddii Ilaahay yiraahdo saasina ku dhaxmaahay anaa u tagaya arrinkan anaa galaya anigu waxaan rabaa inaan arko awlaad aan eedo ahay marka arrintan soo dhameeyay wuu aqbalaya ha ka warwarin waa helaysaa Jamaal waa mahadsantahay abaalkaagana waxaan ku gudo ma garanayo abaalkaaga kulli qofka gudo baan ahaan doonaa insha Allah waad mahadsantahay dib ma leh saaxiib waan isku leenahay taas xaaladaada ka waran waa fiican walaashaydii aadana fiicanahay soo dhawow xaaladaha ka warban maryaa shaqada ay ku badatay oo shaqada xafiiska iyo hawlahan kala wadayba iska batay sababay waran maxay ka dambeeyay waa runtaa laakiin gabadha islaaqahay
maxaad war ugu celinaya mise inaad reer samaysatid ma rabtid walaal soo ma ogid aniga inaad keligaa ila dhalatay waxaan jecelahay inaan ubadkaaga arko runta walaal waan ogahay mar walba in wanaagayga jeceshahay waan ogahay inaad rabto inaan anagu wax noqdo arrinka gabadhan aan nacebahay maan micnaha dad jawaabsiin waay waxaa jira arrin kale aabageedi waad ogtahay mustaqbalkayga suu uga fikiray iyo noloshayda wuxuu ii soo bandhigay inuu gabadhii doonayo aabageedi oo arrinkaan isku ognahayna dee gabadha riyo aan jirin uma abuuri karo kuma dhigi karo nolosha ka midoobana isdegdeg marka walaal arrinkaas aad ogistaan adeerageedu waa qof fiican agaasimo ayuu kaa dhigay wuu ku caawiyey haddana garabkaaga ayuu taagan yahay ma jirto waxaan ku dhaco laakiin gabadha sulaakhaad arrinkeeda maxaad ka yeelaysaa arrinka sulaakha qofka marka wax u sheegaysa wax wanaagsan baa loo soo hormariya laakiin adiga wixii xumaadan xagga hore kusoo mariyey arrinka haddii aan kuu sheego aabageedi waa kulannay labadana waa wada sheekaysanay wuxuuna ii sheegay marba haddii gabadha dartay norway uga timiday ina rabto noloshan iga wadaagto inaan si fasaxanay masguursanayna iyadana hadda waan ballansannahay waxaan noqdaan kaga farxin jidsiga meesha maasha allah hambali walaal aabageedi waa qof fiican dadka isjecel ayuu isu soo jeeday abaalkiisa runtii ma gudi karno wallahi waa runtaa runaantii waqtiyo badan garabkay soo istaagay waqti aan u baahnaa inaan garabkaygu soo istaagay maantana mustaqbalkay heer laa ka fikiraya aan xaasilaysto shaqaysiiyo weliba shaqo fiican oo sharaf leh inuu garan noloshaan soo maray halkaan ku noolaa sidaan ahaa runaantii aad buu maadsan adigoo walaashay qoradayda mar walba laga waa mahadsantahay walaal laakiin gabadha sulaakhaadu aad bay u warwarsan tahay u sheegdee arrinkaa keliya soo maa hadda inaad ka qarisamaa igu halle haddawti waan ballansanahayba iyadaa ii imaanaysa wax walba u sheegaya ka baqnad midaas don't worry waad iga farxisay walaalo waayo anu mar kasta waxaan jeclahay ubadkaaga inaan arko in badan waan ku hamiyaya waana sugi karlahay waana sugi doonaa insha allah ilahay waxaan rajaynaa inuu iga sumo haye ayaan ku leeyahay haddana waan sii soconayaa gabadha orgo kasoo farxide haye walaashay waa socon kartaa qaybisay falcara ama qaan saruuba daruur midab ku qarisay qiimaheedii qof midan lama amaano qalad looma hilsin qurayshtii haweenkaay نفتاد قنع سيبا كو قشوع زيو وانا كو قريتي نفتاد قنع سيبا كو قشوع زيو وانا كو قريتي قبرقا هرتي قرادي سليخة إيه ورجع مع الجرا عن قوان كاسة ده dhibaato ma lahan ugu dambeyn mar haddaad timid muhiimad waa inay timid weeyaan maanta xoogaa wejigaagu si u yar maqan yahay maxaa ku dhacay dhibaato ma jirto مية مع الوقت مجلسه هذا جاي نجيبه كاسو جيسون معنا runaantii aad baan kaaga raali gelinayaa inaan jawaabta si degdeg ah kuu siiyo waqtigii
way kuu fiicnaan lahayd laakiin hal dhibaataa jirta dhibaatadaasina waxay tahay aabageedii gacalisadeedii hore allah naxariista iga geeriyootay aabaheeda marna aniga aabahay ah marna aan maareeya xafiiskiisaan ahay oo xafiiskiisaan ka shaqeeyo yaa ii soo bandhigay mustaqbalkayga maadaama muddo badan soo dhisayay inuu gabadh aniga igu darayo ii siinayo arrinka guurka ee uu soo bandhigay yaan kaaga mashquulay Jamal sidoo hadlaysaa maxay tahay gabadh baa lagu daray daasi hadda waxay leedahay gabadh kale ayaa nolosha la wadaagaya hadalkaygu saamaan saa kamaan oday gabadh kale nolosha lama wadaagayo eedan nolosha la wadaagaya qosol hee farax mar kale Jamal wallahi waad iga farxisay laakiin wal markii hore waad iga naxisay gabadh iyo wax kale ay soo qaaday salaadkeed baan anigu naxay ahayd dib ma lahayn marka ada hadalkayga dhaxgalo ma seerta baan maleynaya marka arrinkaas soo qaaday arrinka aabo geedi waa u soo bandhigay waxaan ku dhahay suleekha jirto darteeda Norway uga timisay nolosha wadaagna soo gursano arrinkan runtii soo dhaweeyay wanaagga iga aqbalay anoo laakiin hadalku ku dhameystirin baa xogo ad ka naxdaan maleynaya marka saasaad yaad iga dhax gashay marka qofta nolosha la wadaagayo waa adiga qof kale ma ahan waa inaad ku saaxato soo tastashaa Jamal wasi wanaagsan anigu wallahi bilaaya jawaabta aan sidan kaaga sugayay jawaabta waxay ugu qaadatay inaan habeen iyo maalin aan seexan oo soo jeedo oo ka fikiro jawaabta sidaad ii siin lahayd maantana wallahi lama soo koobi karayo farxadayda jawaabta isisay jawaab aan filayay maaha alxamdulillah rabbil caalamiin ashkura ilaahay baa mahad iskale suleekha maanta aniga aad baan ugu farxay waxay ka farxad badan ma jirin adiga nolosha wadaagno waxyaabo badan oo la soo maray kadib laakiin arrin kale jira habageedi arrinkii waa u sheegay ahaa adiga codsatay in arooskan uu ka dhaco Norway igama yeerin waalidna waad garanaysaa oo de mar walba wuxuu jecel yahay ilmihiisu farxadiisa inuu arko aroos una abageedi joogina aad ma dareemi kartaa sida uu noqonayo marka sidaa daraadeed abageedi wuxuu codsaday arooskan jigjiga ka dhaco meel uu inaga arkayo ka dhaco arooskeenu diyaarinaya hawsheenu gelaya gurigaan degi lahayn iyo mashruucyadeenna diyaarinaya guurka waxyaabo ku saabsan oo dhan sida daraadeed waxaan ka ballan qaaday inaan arrinka ka dhaadhicinayo marka waxaan rabaa arrinkan adiga aqbasho insha Allah Jamal mahma aniga Norway waxiga iga xidhan malahan sababta qofkan jeclaa mar hadaan helayo meesha uu ku faraxsan yahay inaan kula faraxsanaado way wanaagsan tahay maadaama hadalka aabana oo ka hadlay aabo waa waalid ducadiisana waan u baahanahay diyaar ayaan u nahay xitaa haddii aad tiraahdo Norway iska daa halkan ku wada noolaanina diyaaran ahay inaan halkan kugula noolaado Norway waxa ka weyn jacaylka aan ku qabo sababtoo ah meesha aad joogto inaan kugula noolaado ayaan diyaar u ahay jacaylkeenana ka weyn waxa soo dhan yahow adowa xerya sama ku noolban xidig yahow adowa xerya sama ku noolban isku xisaburon xaqiiq isku jeclaane حسكني إسربيبا حقيني وحقاقبا حسكني إسربيبا حقيني وحقاقبا حسيري كالقعلك حسكني إسربيبا حقيني وحقاقبا حسكني إسربيبا حقيني وحقاقبا حسيري كالقعلك تشيلكي حنت ياني كاهلين تدك حومة تشيلكي حنت ياني كاهلين واحد حيرك وليدهي ودنا هيدا كو حلالو وانكوكو حمدية تدك حومة تشيلكي حنت ياني كاهلين تدك حومة تشيلكي حنت ياني كاهلين واحد حيرك وليدهي wadnahayga ku xalalo waan kugu xamdiyaa
noqote xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu xidig yahow xaragadiyo xeel dheeri garashadu